Laacibka xulka qaranka Soomaaliya ee kooxda kubadda cagta Horseed Caawiye Maalin Cabdikariin Cabdulle Quwayo oo ka mid ah xiddigaha laf-dhabarta u ahaa dalkeena Soomaaliya ayaa iskaga tegay naadiga Jaaliyasha Elman kaasoo ku biiray koox ka dhisan dalkaasi Tanzania. Cabdikariin Cabdulle Quwayo ayaa macsalaameeyay mahadnaqna u sameeyay kooxdiisa. Ugu horeyn waxa uu mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala. Marka xigta waxaan u mahadnaqayaa maamulka, macallimiinta, ciyaartoyda, taageerayaasha naadiga, ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee kooxda Horseed oo ii muujisay jacayl, garab istaag iyo taageero. Naadiga Horseed waxaana naadiga koowaad ee aan u saftay horyaalka heerka koowaad ee dalkeena Soomaaliya, waxayna igu garab siiyeen inaan markaasi ka miro dhaliyo hamigayga ka qaybgalka ee ciyaaraha. Muddadii aan ku sugnaa naadiga waxay ii muujiyeen ixtiraam, jacayl iyo garab istaag. Waxaan aaminsanahay in wax walba ay noqdeen la'aantooda anagoo oo qoraal ku soo koobi karin jacaylka aan u qabo iyo ixtiraamka aan u hayo naadiga Caawiye Maalin. Waxaan rabaa in aan halkan ka macsalaameeyo dhammaan naadiga Horseed, marnaba kama go'ayo qalbigayga meel walba oo aad joogtaan, ayuu yiri laacibka xulka qaranka dalka Soomaaliya. Waxa uuna doonayaa in markaasi uu meel sare ka gaaro isboortiga shaqsi ahaan. Sidoo kale kooxdana waxay ii garab istaagtay, taageero weyn ayay ii muujiyeen. Waxaana filayaa in ay markaasi ka guul dhaliyaan hadafkooda ciyaareed. Baaqi ayaan ku sii ahaan doonaa qulubtooda, ayuu yiri. Waxaan u rajeynayaa guul iyo hiigsi fiican, ayuu yiri Quwayo oo hadda markaasi ku biiray koox ka dhisan dalkaasi Tanzania. Waxa uuna la midoobay macalinkiisii hore Macallin Cabdixamiid iyo sidoo kale ciyaaryahankii weynaa ee kooxda Caawiye Maalin Ibraahim, horeyna qayb uga ahaa ciyaartoyda ku guuleystay koobka degmooyinka gobolka Banaadir. Ibraahim Ilyas ayaana gacan weyn ka siiyay ku biirista uu ku biirayo kooxda ka dhisan dalkaasi Tanzania. Sidoo kale Quwayo waxay saaxiib dhow markaasi ahaayeen Ibraahim iyo sidoo kale ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Cadaani Bare Ciise oo isna guul iyo sidoo kale niyad wanaag u rajeeyay ciyaaryahanka oo aad saaxiibo dhow iskugu hayeen. Waxaana uu sheegay in mustaqbalkiisa uu wanaajiyo, mustaqbal wanaagsan ayaana u rajeynayaa, ayuu yiri laacibka Cadaani Bare oo markaasi dhiirigeliyay laacibka lagu magacaabo Quwayo Yare oo markaasi ka tirsan laacibiinta soo maray xulka qaranka Soomaaliya.